waxaan maanta dib ugu laabanaynaa mid ka mid ah goobihii ugu caansanaa ee dagaalka qarniga 21aad saldhigga Bagram ee Afghanistan. Saldhig weyn oo markii hore ay dhisteen ciidamadii Soofiyeed balse markii dambe noqday qalbiga dagaalka Mareykanka iyo xulafadiisu ku qaadeen Taliban iyo Al-Qaacida oo socday muddo 20 sano. Bagram waxa uu ahaa xarun diyaarado dagaalka kacaan lagu fuliyo arrimo sirdoon oo qarsoodiya iyo xabsi lagu xidhay dad fara badan lagu dhaleeceeyay arrimo ka dhan ah bini'aadantinimada. Laakiin ugu dambeyn saldhiggan xoogga badan waxa uu ku dhammaaday oo ku dambeeyay gacanta Taliban Afghanistan isagoo noqday calaamad muujinaysa guuldarrooyinka iyo casharada dagaalka dheer ee Afghanistan. Maxaa saldhiggan ka dhigay mid sidaa muhiim u ah? Maxay ahaayeen waxyaabihii ka dhacay gudaha saldhiggan aan caadiga ahayn? iyo sidee ayuu u noqday astaanta fashilka Mareykanka ee Afghanistan? Haddaba ku soo dhawaada mowduuc iyo muuqaal aynu kaga hadli doono saldhigga Bagram. Waa xaruntii awoodda iyo muranka ee Afghanistan. Qodobka ugu horeeya bal waxaynu ku eegaynaa goobta iyo astaanta uu ku yaalo saldhigga Bagram la yiraahdo. Saldhigga Bagram waxa ku yaala gobolka Barwan oo ku dhow magaalada Bagram, waqooyi bari ee caasimadda Kabul. Sababta uu muhiim ku yahay waa meesha uu ku taalay ayaa ka dhigtay xarun istiraatiiji ah. Maxaa yeelay waxa uu ku dhow yahay caasimadda oo ah dhul buuraley ah oo istiraatiijiya iyo wadooyinka ganacsiga ee gobolka. Cabirkiisa waxa lagu tilmaamay inuu ka ballaaran yahay magaalo yar, wuxuuna lahaa 2 garoon diyaaradeed oo waaweyn oo ay kasoo kala degaan diyaaradaha xamuulka sida iyo kuwa ciidamadu, xarumo caafimaad iyo xeryo ciidan oo waaweyn. qodobka labaad bal waxaynu ku dul istaagi doonaa taariikhda Bagram. xilligii Soofiyeedka 1979 ilaa 1989 markii midowga Soofiyeed uu galay Afghanistan sanadii 1979 Bagram wuxuu noqday xarunta ugu weyn ee ciidamada Soofiyeedka. halkaas ayay ka duuli jireen diyaaradaha dagaalka Soofiyeedku waxaana lagu hayn jiray hub culus. markii Soofiyeedka laga adkaaday saldhiggu waxa uu galay gacanta kooxo maxalli ah oo Afgaan ah. xilligii Mareykanka ee 2001 ilaa 2021 kadib weeraradii 11 Sebtembar 2001 Mareykanka iyo xulafadiisa NATO waxay weerar ku qaadeen dalka Afghanistan si ay meesha uga saaraan Taliban iyo Al-Qaacida. saldhigga Bagram ayaa noqday qalbiga dagaalka. waxaa ku sugnaan jiray 10,000 ilaa 100,000 oo askarta Mareykanka iyo kuwa midowga NATO. waxaa lagu keydin jiray diyaarado dagaal, helikobtaro iyo gaadiid culus iyo saanad ciidan. waxaa ka dhici jiray howlgallo sirdoon oo CIA-da iyo Pentagon-ku ay hogaaminayeen. qodobka saddexaad waxaynu ku soo qaadanaa Bagram iyo muranka jira. xabsiga sirta ee Bagram waxaa ku yaalay saldhiggan Bagram xabsi qarsoodi ah oo lagu hayn jiray laguna ciqaabi jiray maxaabiista looga shakisan yahay arrimaha argagixisada. warbixino badan ayaa sheegay in halkaas lagu sameyn jiray jirdil, cadaadis nafsi iyo mid jir ahaaneed. maxaabiista qaar ayaa halkaas ku dhintay, taas oo dhalisay cambaareyn caalami ah kana timiday dhibaatada aadka u weyn ee loo geysanayo. saameynta uu ku yeeshay shacabka Afghanistan. dad badan oo Afgaan ah waxay Bagram u arkayeen meel cadow ah oo astaan u noqotay joogitaanka shisheeye. qoysas badan ayaa ka caban jiray ehelkooda oo halkaas lagu xiray iyadoo aan maxkamad la soo taagin. qodobka afraad ee mawduuceenu waxa weeye doorka istiraatiijiga ee saldhiggan uu leeyahay. Bagram waxa uu ahaa xarunta ugu weyn ee howlgallada cirka ee Mareykanka iyo xulafadiisa NATO. diyaaradaha dagaalka ayaa ka duuli jiray, waxay bartilmaameedsan jireen saldhigyada Taliban iyo Al-Qaacida ee gudaha Afghanistan iyo xuduudaha Pakistan. waxaa kale oo loo adeegsan jiray hub, dhaqaalaha dagaalka iyo tababarka ciidamada Afghanistan. qodobka shanaad aynu ku falanqaynayna mawduuceena waxa weeye ka bixitaankii Mareykanka sanadii 2021. bishii Luulyo 2021 Mareykanku si lama filaan ayuu uga baxay Bagram. waxaa la sheegay in ciidanku habeen madow ay ka baxeen iyagoon xataa ogeysiinin xulafadoodii dowladda Afghanistan ahayd ee ay muddada 20 sano ah gacan ku rimiska ku sameynayeen una diyaarinayeen inay la wareegaan dabadood dalka Afghanistan. ciidamada Afghanistan ayaa markii hore qabsaday, laakiin dhowr bilood kadib markii Kabul ay gashay gacanta Taliban, Bagram waxaa si buuxda ay ugu dhacday gacanta Taliban. qodobka lixaad ee aynu ku falanqaynayna mawduuceena waxa weeye saameynta ka bixitaanka ciidamada Mareykanka. saameynta ku yeeshay Afghanistan.
Kabixitaanka Mareykanka waxa uu muujiyay in dowladda Afghanistan aysan lahayn awood ciidan oo ay ku maamusho dhammaan saldhiggan iyo guud ahaan dalka Afghanistan. Dad badan waxay ku tilmaameen guuldarro siyaasadeed iyo ciidan oo Mareykanku ka soo maray 20 sano oo dagaal ah. Mar kale waxaan eegaynaa bal saameynta dibadeed iyo dunida uu ku yeeshay. Bagram waxa uu noqday tusaale muujinaya sida dagaal dheer xitaa haddii uu leeyahay taageero dhaqaale iyo hub xooggan uu u fashilmi karo haddii uu waayo taageero gudaha iyo bulshada meesha degan. Waxaa loo arkay calaamad muujinaysa dhammaadka faragelinta shisheeye ee Afghanistan. Ugu dambeyn, qodobka ugu dambeeya waxaanu ku eegi doonaa casharada laga baran karo dagaalkaas iyo saldhigga Bagram ka bixitaanka Mareykanka ka baxay iyo guud ahaan dalka Afghanistan ka bixitaankiisa. Hubka iyo awoodda kaliya kuma filna taageerada dadka gudaha ayaa lama huraan. Waxaa laga baran karaa in hub iyo awood ciidan oo wadan gudaha dusha ka qabsatay aanay ku filayn in ay awoodi karaan dalka inay si haystaan. Markasta loo baahan yahay oo lama huraan tahay taageer gudaha. Dagaal dheer oo aan qorshe cad lahayn waxa uu ku dhammaan karaa guuldarro xanuun leh. Xabsiyada iyo tacadiyadu waxa ay dhaawacayaan kalsoonida shacabka, waxayna dhalin karaan caro iyo nacayb joogto ah. Ugu dambeyntii, saldhigga Bagram waxa uu ahaa astaanta awoodda Mareykanka ee Afghanistan, isla markaana waxa uu noqday calaamadda guuldarrada. Muddo 20 sano ah waxa uu ahaa xarun dagaal, tababar iyo sirdoon. balse ugu dambeyn waxa uu noqday meel muujinaysa in dagaalada iyo faragelinta shisheeye aysan keeni karin nabad waarta haddii aysan la socon kalgacal, cadaalad iyo qorshe lagu qancinayo dadka deegaanka. Intaan mawduucan mid lamid ah ku kulmi doono waxaan leeyahay nabaday. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.